بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan bilaabaynaa suuratu nnaas tafsiirkeeda. suuratu nnaas waa suura madaniya, waxay soo degatay hijiradii nabigeena calayhi salaatu wassalaam kadib. sabab nusuulkeeda wuxuu ku saabsan yahay nabigeena calayhi salaatu wassalaam waxaa sixray ninkii la dhihi jiray labiid ibnul acsam oo nin yahuudda xaliif iyo xilfi wadaag ka dhexeeyey ahaa. ninkaasaa nabigeena sixray calayhi salaatu wassalaam. wuxuuna ka dhashay qolada la yidhahda bani zurayq ayuu ka dhashay, waxayna xaliif u ahaayeen yahuuddan. nin munaafiqa buu ahaa, yahuudnimadka waxaa u dheerayd iyo gaalnimadka uu ku jiray waxaa u dheerayd munaafiqnimo. ninkaasi nabiga wuxuu ku sixiray calayhi salaatu wassalaam shanladii uu ka shanlaysanayey jajabkeedii iyo timihii nabiga calayhi salaatu wassalaam kasoo googo-ay ayuu ku sixiray. nabiga marka wuxuu ka sixiray arrimaha xaasaska iyo wixii ku saabsan buu ka sixiray, oo nebigu wuxuu u malaynayaa inuu reerkiisa la kulmay oo galmi iyo wax sameeyey. xagga unbuu ka sixiray, laakiin xagga diinta muuna ka sixirin. nebigu isagoo arrintaas muddo ay haysatay ayaa waxaa u imaaday laba malag, mid xagga hore ka fadhiistay midna xagga dambe. markaasay isweydiiyeen maxaa ku dhacay ninka, marka wuu sixiran yahay buu yidhi. kii kalaa dhahaya oo u jawaabaya yaa sixray, oo ninka labiid ibnul acsam la yidhaahda ee reer bani zurayq oo xaliifka yahuudda la ahaabaa sixray. xaguu geeyey buu yidhi sixirkii. wuxuu ku sixray buu weydiiyey, wuu u sheegay. wuxuu u sheegay ina ceelka la yidhaha bi'ru darwaan, sallax ku yaalla hoostiisa biyaha dhexdooda, inuu geliy sixirkii. halkaas sixirkii markii intaa ay u sheegeen way ka tegeen. nebigu wuxuu u diray cali bin abi aalib iyo zubayr bin cawaam iyo camaar binu yaasir, saddexaas u diray. gala buu yidhi ceelka. markaase waxay ka soo saareen sixirkii. nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu u sheegay arrintii caaisha ayuu la wadaagay nebigu calayhi salaatu wassalaam. marka qisadaasay ku saabsanayd. nebigana ilaahay baa caafiyey. suuratu naas iyo suuratu falaq ayaa kusoo degatay nebiga calayhi salaatu wassalaam. sabab nusuulkooduna waa isku mid. bismi illaahi, ilaahay magiciisa ayaa ku bilaabayaa suuradda. allihii arraxmaani ee naxariista ku tilmaanaa, allihii arraxiimi ee khalqigiisa oo dhan u naxariisanayey. qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow, acuudu waxaan magan gelayaa birabbi nnaasi dadka barbaariyahooda ayaan magan gelayaa. maliki nnaasi dadka boqorkooda ayaan magan gelayaa. ilaahi nnaasi dadku midka ay caabudaan ee cibaadada mudan ayaan magan gelayaa. min shari lwaswaasi midka wax waswaasiya sharkiisa ayaan ka magan gelayaa. alkhannaasi ee gabashada ama libdhida badan ama gabashada badan ama libdhida badan, oo markaad adkaarta la timaadaba wuu cararayaa oo wuu kaa qarsoomayaa. alladii kaasoo yuwaswisu waswaasinaya fii suduuri nnaasi dadka laabahooda dhexdooda waswaasinaya, oo cibaadada markaad ku jirtu laabtaada waswaasin, reerkii isqabay buu kala waswaasin, wax walba ayuu waswaas kaa gelin oo wanaag ah. alladii kaasoo yuwaswisu waswaasinaya fii suduuri nnaasi dadka laabahooda dhexdooda, oo min aljinnati jin iyo wannaasi dad ah. midkaasi laba meelood unbuu ka yimaadaa shaydaankaasi. imaa inuu yahay insi oo kuwa xunxun ee insiga inuu yahay, ee dadka fasahaadiya, ee qaadka bara, ee sigaarka bara, ee heesaha bara, ee meelaha shiishadaha lagu caba bara, waa shayaatiinul insi. iyo inuu jinka ahaaday. labadaa mid weeye. wallahu aclam wa axkam.